السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته سود وهذا وأمر كله برنامج كله يكست تي في مالك وجمعة وتضبط نوفمبر لبضة كون شن لبعتنك برنامج كنا المانتا إن شاء الله تعالى وحنكون قاعدة لقدونا الرميه وجود بيجي يورركي وجود بيجي وكسابسن الرماها ذلك مريكانك يسياسة ديسة جارهان شق جوجينتا بحسن أو صوفو صارتي دولة فدرالك أهيد ذلك مريكانك haddii aad nagu cusubtahay subscribe to channel dahru noo joogtay like and share the video oo idinka mahad celinaya sidoo kale facebookgeena followda dhac ku sii insha Allah aan ku bilaabay maanta waa maalinkii 38aad ee dawladda Mareykanka ay ku jirto shaqo joojin buuxda taas oo ku saabsan isqaqabsi xagga dimuqraadiyiinta iyo xisbiga jamhuuriga oo ay isku haystaan arrimo fara badan oo ka dhaxeeya labada qoloba midba midka kale uu ku diidan yahay haddii aan si gooniya u eegno maanta oo ahayd maalinkii 38aad hoggaanka dimuqraadiyiinta ee aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa isagu waxa uu soo sheegay ama uu miiska soo saaray qorshe ay rabaan in dawladda federaalka ah lacagta loogu fasaxo oo budgetka loogu sii daayo si way yiraahdeen bal at least intaan wada hadal ka galayno sheekadan ay u sii socoto oo dawladda hal sano oo extension ah hala bixiyo oo extensionkaas ayaa halkaasna waxa uu ku saabsanaa ama xilli dheer muddo dheeraysigaas ayaa waxa uu ku saabsan yahay in barnaamijkii ahaa affordable health care ama Obamacare waxa loo yaqaano in lacagtaas tax credit la siiyo dadka muwaadiniinta ah oo isticmaala programkaas haddaba programkii ay keeneen oo halka sana ahaa in extension lagu sameeyo Obamacare dawladdana codka ay u baahan tahay la siiyo si looga baxo shutdownka iyo shaqo la'aanta soo food saartay dadka dawladda federaalka u shaqeynaya ee Mareykanka ayaa waxa isla markiiba si degdeg ah uga hor yimi madaxda iyo hoggaanka aqalka sare ee Republicaanka ama jamhuuriyiinta odayaashan ayaa waxa ay sheegeen in aysan marnaba ogolaan doonin hadday rabto ha noqoto hal bile in Obamacare ama programkii ahaa affordable health care oo kaarka caafimaadka dadka shaqeysta lacagta discountiga loogu sameynayay aysan qaadan doonin habeen Allah ka dhigay waxa odayaashan xagga jamhuuriga ka soo jeeda ay aadi dhamay dusha ka saareen dimuqraadiyiinta iyaga oo sheegayo in dimuqraadiyiinta ay diidan yihiin jid iyo jahlaan ay yihiin oo diidan yihiin wax kasta oo xal ah oo lagu gaari lahaa in shutdownka laga baxo zeeyay Jack Schumer oo isagu ah ninka minority-ga ama aqalka sare u xukuma qolyaha dimuqraadiyiinta u hogaamiya ayaa waxa uu sheegay biilkan maanta ay soo bandhigeen inuu dawladda dib u furi lahaa hal sano oo extension aan la bixin lahaa halkaas sanana xal looga gaari lahaa waxyaabaha ay jamhuuriyiinta rabaan iyo waxyaabaha ay rabaan dimuqraadiyiinta arrinkaas isaga ah waa la isku mari waayey madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa isagu waxa uu sheegay in aqalka sare aan loo ogolaan in ay ka tagaan Washington maadaama la gaaray xilligii iyaga naftooda ay qaadan lahaayeen break ama holiday ay aadi lahaayeen in aysan ka tagin ilaa deal ama xal laga gaaro dawladdana dib loogu furo lacagaha marka intaas ayaa maanta dhacday weli lama sheegin in mar 15aad cod la gelin doono which tomorrow oo ah bari oo ah Sabti 12 duhurnimo markay tahay dib loo ballamay haddana ma aysan sheegin in cod mar kale la gelin doono arrinkan shutdownka oo taa codkaas oo noqon doona codkii 15aad oo la geliyo arrinkan marka waxaad ogaan kartaa 14 jeer oo hore in cod intii la geliyay ay shaqeyn weysay marka dimuqraadiyiinta waxa ay haystaan 5 cod oo ay ku sameyn karaan wax la yiraahdo systemka loo yaqaano filibuster Trump ayaa waxa uu ku goodiyay in haddii xal ay gaari waayaan ama xal ay keeni waayaan filibusterka systemka in ay ka hor iman karaan oo ay iska wadayn karaan maadaama majority-ga iyaga ay haystaan ayna dareensan yihiin haddii November 2026 la gaaro in aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba ay maaragtay qatar kaga jirto inay waayaan xisbiga jamhuuriga maadaama isqaqabsi fara badan uu jiro iyadoo sidoo kale ay maaragtay ka duulayo doorashadii shalay dhacday oo dimuqraadiyiinta ay si saa'ida ugu soo baxeen marka intaas ayaa horta maanta dhacday berri ayaa soo noqon doonaa oo arki doonaa waxa ka soo kordha dhanka kale markaan ka eegno waxa bariyahan aad iyo aad la isugu haystay dadka Amerikaanka ah oo iyagu gaarayo 42 milyan
oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin oo ay ku tiirsan yihiin programka kaarka cuntada ee food stampska loo yaqaano ama snapka loo yaqaano supplemental nutrition assistance program baa la yirahdaa snap baa la yirahdaa 42 milyan oo qof oo ku noolayd kaarka cuntada qaadan jiray ayaa bishan koodeedii lacagtii aan loogu soo shubin nin judge ah ama xaakim stateka jooga Massachusetts ayaa waxa uu soo xukumay in kaarka cuntada la fasaxo oo la siiyaa dadka cuntada loo fasaxo kaarka cuntada loogu soo shubo waxa ninkaas uu ku doodayaa ama judge-kaas in si markii hore waxa uu ku doodayay in si qayb loo fasaxo qaybna ay sugto inta shutdownka laga baxayo hase yeeshee madaxweynaha ayaa waxa uu ku adkaystay in programkaas aan wax la taaban karin farna aan la saaraynin oo programkaas dowladda aysan ogolaan doonin in lacagtaas la bixiyo ama partial ha ahaato qayb ha ahaato ama full ha ahaato marka maxkamadda ayaa dib ugu laabatay appeal ayuu qaatay dowladda federaalka Trump ayaa appeal qaatay racfaankiina waxa ay soo xukuntay in aysan judge-kaas go'aankiisa aysan taabanaynin ha yeeshee judge-kii ayaa maanta haddana ama xaakimkii ayaa maanta ku soo laabtay isaga oo sheegay in dadka galabta oo jimco ah 7 bisha November kaarka cuntada dadka loogu shubo oo loo sii daayo ayada oo lacagtaas laga soo weecinayo barnaamijyada sida wiiga oo kale women and infant care and nutrition systemka dumarka iyo maarta uur kale iyo caruurta yaryar programkii lagu siin jiray cuntada in laga soo weeciyo oo dadkan loo fasaxo iyo program kale oo isagana ay waaxda beeraha iyo Department of Agriculture ay raangareyso lacagahaas xaqa laga soo wareejiyo yiri dadka kaarka cuntada qaato ha loo fasaxo hadhow idinka saad u xisaabtamaysaan idinka idin taala marka arrinkaas isaga oo diidan madaxweynaha Donald Trump oo raba inuu ku cadaadiyo dimuqraadiyiinta eedana dusha uu ka saaro in dimuqraadiyiinta ay ka dambeeyaan cunto la'aantan dhacday iyo programkan shutdownka ayaa waxa uu diiday haddana mar kale inuu u hoggaansamo marka judge-kii ayaa si cara leh waxa uu u sheegay jimcaha galabkiisa oo maanta ah hadda aan idinla hadlaayo in lacagtaas la fasaxo haddii kale ahayn dacwadan ay intaa ka weynaan doonto maxkamadaha dalka Mareykanka awood ayay leeyihiin madaxweyne Trump ayaa isagu intuu baxay waxa uu codsi u gudbistay maxkamadda u sarreysa dalka Mareykanka maxkamadaas oo uu ku sheegay in ay ka qaado arrinkan iyadana dib u eegis ay ku samayso annaga wax lacaga oo aan bixinayno haba yaraate ma jirto buu ku adkaysanaya ha yeeshee wuxuu sheegay in Judge McConnell baa la yidhaahdaa orderkiisa uusan u hoggaansamaynin intaasna ka horeyso waxaan rabaa buu yidhi in maxkamadda sare ee dalka Mareykanka Supreme Courtiga oo mar walba aad ogtihiin in xisbiga jamhuuriga ay u badan yihiin kaysaska uu horkeeno madaxweyne Trumpna badankood maaragtay isaga ay garab leeyihiin arrinkan marka maxkamaddii hoose Judge McConnell amarkaas ayuu bixiyey maxkamaddii ku xigtay oo appeal courtiga ahayd waxay tiri annaga ma hor istaagayno go'aanka uu soo qaatay ninkaas odayga ah xaakimkaas halkaas iyada ah ayuu uga baxay and then maxkamaddii sare ayaa la aadaya marka inay qaadan doonto kayskan iyo in kale oo ay dhegeysan doonto iyo in kale waa goonideeda laakiin haddeer waxa meeshaas ayaa lasla marayaa arrinkaas halkaas ayuu isagana marayaa oo arrinkan waxaa keenay arrinka shutdownka ah oo dowladda shaqo joojinta ay ku jirto dhanka kale meesha qaybta u dambeysa markaan ka fiirino waxaa aad iyo aad u soo batay diyaaradaha la kansalayo flight cancellationska iyo delayga flightka in la daahiyo ayaa iyadana aad iyo aad u soo batay arrinkan ayaa waxaa keenay air traffic controllerska ama dadka diyaaradaha markay degayaan kor kala socda oo dejiya oo scheduleka iyo waxa dhan diyaariya oo diyaaradaha soo degaya iyo kuwa kacaayaba kala habeeya dalka Mareykanka waa dad federaal ah iyagoo federaal ah maysan hadda 38 casho oo ay shaqaynayeen wax jeega aysan qaadan inkasta oo lacagtooda hal mar la isku siin doono iyadoo oo lamsam ah isku duuban hase yeeshee weli wax jeega ma aysan qaadan marka waxay bilaabeen in ay waa xanuunsanahay soo rejistaan oo calling sick iyo in shaqada ay ka baaqdaan
iyaga oo isticmaalayo xilligooda vacation timeka ahaa iyo waxyaabihii u yaalyaalay isticmaalayo inkastoo wax lacaga aysan qaadanaynin marka wasaaradda ama waaxda gaadiidka Department of Transportation ninka xukuma Sean Duffy ayaa maanta isna ka hadlay in aad loo yareyn doono diyaaradaha flightska dalka Mareykanka isaga goosha ama international kaba ha ahaadaan laakiin diyaaradaha garoomada ku soo dega madaarada dalka Mareykanka in la yareyn doono maadaama shaqaalihii ay yaraadeen arrinkan shutdown-kana uu affect ku yeeshay ama saameyn xoog leh uu ku yeeshay so arrinkaas ayaa isagana jira nimankan markaa waa isdagaalayaan tomorrow ama berri 12 markay tahay duhurnimo uma eka sida hadda ay u wada hadlayaan dad xal gaari raba sababtoo nin walba meeshiisu taagan yahay laakiin kaarka cuntada hadduu sii maqnaado diyaaradaha haddii la kansalo bay yiraahdeen weliba xisbiga jamhuuriga dhahayo diyaaradaha haddii la kansalo oo flightska delay laga dhigo oo la daahiyo waxa ay ku qasbi doontaa bay yiraahdeen dimuqraadiyiinta in ay furaan dowladda oo ay shanta cod ay u baahan yihiin ay siiyaan si loogu meelmariyo waxa iyaga ay rabaan inkastoo oo dimuqraadiyiintan ay ku doodayaan in at least hal sano hala kordhiyo oo ha lagu daro arrinka Obamacare ama affordable health care-ka kaarka caafimaadka ha lagu daro arrimahan ayaa maarta ka jira saameynahan ay keeneen iyagana waxa dalka Mareykanka wixii ka soo kordhay insha Allah taala waan eegi doonaa laakiin shutdown-kii iyo shaqo la'aantii soo food saartay dowladda federaalka ahayd iyo dhaqaale xumadii soo food saartayba intaba waxa ay sababeen arrimahaas inay dhacaan marka waa arki doonaa insha Allah taala laakiin waxa rajaysaan ba haduu Ilaahay idmo waa in kaarka cuntada lagu soo rido lacagtii berri haduu Ilaahay idmo haddii aysan wax isbedelin oo maxkamadda sare ee dalka Mareykanka Supreme Court-ga aysan wax bedelin marka inta ayaan rabay inaan idin la wadaago haduu Ilaahay idmo waa salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh don't forget to subscribe to the channel like and share the video inshallah wassalamu calaykum waraxmatullaah